السلام عليكم. isku soo noqod wanaagsan ma kuugu dhibaa inaad wax xifdisid ma dareentaa caajis iyo daal. halkan waxaan kula wadaagayaa talaabooyin kuu sahlaya inaad wax walba aad rabtid xifdisid weliba si fudud. u diyaar garow inaad wax xifdisid, ka fiirso meesha aad wax ku xifdinaysid, tag meel degan, ka fogow asxaabta, moobilka iyo wax walba ku qasaya. iskana ilaali inaad sariirta dusheeda wax ku akhrisid, laga yaabay inaad hurdo kugu qabato. ku celceli waxaad akhrinaysid. tani waxay asaasi u tahay wax xifdinta. inta jeer aad wax ku celcelisid ayay ku xiran tahay maskaxdaadu inay kuu keediso. nasiino qaado markaad daashid ama hal saac walba kadib 5 daqiiqo bari qaado. samee waxa fircooni ku dareemaysid. tani waxay kuu sahlaysaa inaadan ku caajisin waxaad xifdinaysid. qulaasee waxaad xifdinaysid. tani waxay kuu fududaynaysaa waqti yar inaad ku xifdisid. mar walbana waxaad wanaagsan inaad si gooni u qoritid waxyaabaha ugu muhiimsan aad xifdinaysid, kadibna aad si gaar ah diiradda u saarato inta qoratay. ama waxaad samayn kartaa inaad qalin gooni ah ku calaamaysid meelaha ugu muhiimsan aad xifdinaysid. samee iska dhegaysi adigoo iskaga duwaya moobilkaaga ama qof kale ha ka dhagayso si aadan u ilaabin. iska dhegaysigu wuxuu kaa caawinayaa inaad maskaxdaada ku nagaato intii hore aad soo xifdisay. samee jimicsi si aad u nadiifiso maskaxdaada. jimicsigu wuxuu u fiican yahay jirkeena iyo maskaxdeenaba, wuxuuna dib u soo celiyaa faa'iidooyin badan. jimicsigu wuxuu hagaajiyaa barashada iyo xifdinta, wuxuu si dhaqsi u kordhinaa garashada qofka. samee daraasayn subaxii. subaxii waa waqti aad leedahay firfircooni iyo waxqabad. maskaxdaadna waxay diyaar u tahay inay diiwaangeliso waxyaabo badan. sidoo kale subaxii waxay ka saameyn badan tahay waqtiyada kale ee maalinka dhan xifdin ahaaneed. ugu faa'iidayso subaxii daraasaynta casharadaada si ay kugu fududaato xifdinta. intaas ayaan jeclaysay inaan idinla wadaago. mahadsanidin.